fiican u eg inta musqulo ay yihiin waana hal qol oo keliya muuqaalo iyo sawirro inay gabdhihiinni noqdaan lesbian baa sabab ugu noqoteen waxaa sabab ugu noqonaysaa wiilashiinni inay gay noqdaan oo dabada isaga tagaan oo dabada isaga galmoodaan gabdhihiinnina ay isguursadaan waxaa ka daran oo arrinta noocaasa gabdha in la arkay ay yidhi waan guursanay oo soomaali ah social mediaha baryahan aad u dhex socotay iskuulka abaarsana ka baxay iskuulka abaarso waa kuma iskuulka abaarso waa iskuul aad iyo aad ummadda soomaaliyeed ay dhibaatooyin fara badan ugu haya weeyaan iskuulka abaarso wuxuu ku yaalaa gobollada soomaaliya ka mid ah waa somalilan ayuu ku yaalaa somalilan iskuulka ku yaalla ee abaarso waxaa la isku raacay waxbarasho ahaan haddii la yidhaahdo inuu aad u tayo badan yahay waana iskuul boodin ah jaamacad uu leeyahay uu hoos tagana way jirtaa niman caddaan ah iyo dad kiristiyaan ah ayaana gacanta ku haya caddaankana sideedaba way kala duwan yihiin qaar waa qaar kiniisadi iyo dacwi iyo waxyaaba noocaas iyo dhaqan xumi iyo keena qaarna waa kuwo uun iska muxsiniin ah kuwa muxsiniintu inta badan waxbarashadooda iyo kama gudbaan majaalkooda tacliimiga ah kuwa laakiin inta badan kiniisadaha iyo waxyaabaha hoostaga inta badan waxay isku dayayaan ilmaha kiristiyan inayna toos uga dhigin laakiin inay akhlaaqiyaadkoodii iyo dhaqankoodii muslimnimadka inay marka hore u foolxumeeyaan ama ay nacsiyaan bay isku dayaan walidaalika iskuulka abaarso dad badan oo ka hadlay ayaa jira oo culumi iyo caamaba leh waxaa ka mid ahaa dadkii aad uga hadlay ninkaa taqaaneen muuse coldoon ninkaasi wuxuu ahaa nin coldoon ah nin aad iyo aad uga hadla ayuu ahaa arrinkaas intaasoo jeer baa loo xidhay ilaa xilligan aan hadda maanta joognana xabsi ayuu ugu jiraa wax kalena laguma xidhayo wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billaahi alcasiizi alxamiid wax kale ma aha war baatilkan aynu ka tagno aynu qaadana diinteenna islaamka ilmaheennana aan ka daysano tarbiyada xun iskuul waxbarashole meel walbay ka helayaan ilmaheennu luqa iyo wax walba way baranayaan gaalnimo iyo yaynan dhaqan xumi ilmaheenna keenin keli an baa lagu qabsaday xabsina uu maanta ugu jiraa intaasoo jeerna lagu xidhay haddaba iskuulka abaarso muxuu yahay dhaqan xumooyinkiisa waxaa ka mid a waxyaabaha soo aragteen awalkii hore aad ku soo aragteen in musqulaha si gabdhahani ay isugu sameeyaan maaragtay islofan galaan oo ayna u kala cabsanin hal musqulay gabdhihii wada gelayaan oo is arkaan markay xaajo gudanayaan gabarh waliba markay xaajo gudatana dee maxay samaynaysaa oo isku garab xaajo gutaan intaas oo gabdhood oo meeshii ku jira ay musqushii hal mar wada galaan oo is wada arkaan sida aad aragtaanba ead hoos ku arkaysaan waxay samaynayaan gabdhihii inay u sahlaan inay sameeyaan lesbian inay noqdaan gabdhihii ayay sabab u noqonaysaa wiilashii saasoo kale ayaguna inay noqdaan qowmuluud inay noqdaanoo marka iyaguna musqulihii wada galaan ee mid waliba cawradii kii kale u arko waxa aad aragtaan ee faxsharka alla wada galo isagana waxaa u dhib yeelanaysaa meesha inay ka soo qaadaan wiilashii inay noqdaan qowmuluud ama gay ay noqdaan ayay u badan tahay marka dhaqanka noocaas ma hirgalay mise muuna hirgelin wuu hirgalay runtii lianna waxaan aragnay gabdho kiristiyaan noqday shalay iyagoo asturan oo xijaab xidhan aabbihii iyo hooyadii ay keeneen gabdhaha maantana xijaabkii iyo ka tegay dhaqankii islaamka oo dhan ka dhaqaajiyey oo timuhu u qaawan yihiin oo sarwaal iyo shaati ku maraya meel walba adduunka marayaan dibadahana la geeyey jaamacadana laga geeyey akhlaaqiyaadkiina ka tegey waxaa isweydiin leh aabbaha iyo hooyada muslimka ee ayagu aan abaarsoo kale soo marin ee dhaqan xumida laga yaaba inayna jeclayn gabadhoodii iyo wiilkooda markay meesha intay keeneen ay arkeen gabadhoodii shalay iyadoo xijaaban oo indhashareeran qaarkoodna xijaaban yihiin ay soo geliyeen meesha ayada oo maanta qaawan oo surwaal iyo garan xidhan inay maanta adduunka meeshay doonta ka marayso miyayna dadkaasi su-aal isweydiinaynin ilmahooda tarbiya xumida ay u soo kordhiyeen ilaahay baa arsaaqada bixiya ilmahaagu meel kasta oo jooga ayuu kugu anfici karaa waxbarasho ka fiican baad heli kartaa meel walba waddamo waaweyn oo kale oo ku dhow baad keeni kartaa oo waxbarasho qiimalana ay kaaga heli karaan ilmahaagu maxaa kalifaya in dhaqan xumida intan la eg ilmahaaga aad raalli iyo gabdhahaaga aad raalli uga noqoto oo gabdhahaagii oo qaawan shalay aad soo tarbiyaysay dugsiga soo gelisay ee waxbarashada islaamiga soo bartay ee dhaqanka islaamka soo bartay intay dugsigan imaadaan abaarso inay gabadhii xijaab ka tuurto inay ku bartaan gabdhihii lesbian inay ku bartaan wiilashii
gay ay ku bartaan. maxaa kugu kalifay? haddaad moodi jirteen berigii hore arrinta noocaas inay ahayd arrin uun laga sheekeeyo oo xadiidu yurwa uun ay tahay, waa kan hadda caddaymaheedii baan idiin haynaa. bal daawada gabdhahan samaynaya qaaqaawan, diinta islaamka ka cararaya, iyo meesha musqulaha xunxun ee gabdhihii wada gelayaan hal mar, wiilashii hal mar wada gelayaan, saf wada gelayaan, ee cawrooyinkoodu isdaawanayaan. bal daawada. bal si fiican u eg inta musqulo ay yihiin waana hal qol oo keliya. muuqaalo iyo sawirro sira ayaan idinkaga helna. waxaan u arkaa inaad aragteen oo daawateen arrinta noocaas ah, oo qof waloo idinka midiiba uu ka dhargay ayaan arkaa. runtii xaqiiqatan gabadhan ayaa waxay ka hadlaysaa dadka islaamka ka baxa ee gaalooba, ama rag ha noqdaan ama dumarba ha noqdaane, inayna tabriiraad bay u samaynaysaa gabadhaasi. bal codkeeda ila soomaalida diinta ka baxda iyo carabta diinta ka baxda, diinta waxa uga baxeen laana way xanuunsanayaan, may ka baxin la inuu ilaahay. gabadhan saad ogtihiin baa waxay ku jirtay oo kale oy hadalladan oo kale ka dhahaysa. waxaan u malaynaa waa qof carabiga, luqada carabigana yaqaana u eg tahay, thaqaafana xambaarsan bay u eg tahay, thaqaafada falsafada la yidhaahdo oo caalam alislaami, welibana wadamada suudaan iyo wadamo badan ee masar iyo dhulkaasoo kale ku badan baad moodaa inay xambaarsan tahay gabadhani. marka runtii xaqiiqatan gabadhani waxaad moodaa ayadu si markii loo fiiriyo waa qof hadal wanaagsan, si markii loo fiiriyana doodii hooyada iyo sodohda markay ka qayb galaysay ama doodeeda halkana waxaa ku jirta wax badan, hadalkeeda qumuud baa ku jira. runtii xaqiiqatan naxnu naxkumu dawaahira wallahu yatawalla saraa'ir. ma garanayna, ilaahay baa subxaanahu watacaala garanaya waxa uu khalfiyaadkeeda u dambeeya, ilaahay baa garanaya. laakiin hadda waa qof muujinaysa dadkan gaaloobaya ee islaamka ka baxaya inay yihiin dad cudur qaba oo waalwaalan oo xanuunsan oon fayoobeyn inay yihiin bay muujinaysaa gabadhu. laakiin annaga waxaan leenahay qof aan fayoobeyn kuma jira dadka diinta islaamka ka baxaya. gabadhan shalay iyadoo xijaaban intii dugsiga abaarsa la keenay, maanta xijaabkii tuurtay, dhaqanka islaamka tuurtay, kuwa qaadanaya calaamadda islaamka ka tegaya, kiniisadaha gelaya, kulligood way wada quman yihiin. ee waxaa adduunya horta dadkan hogaaminaysa, intooda badan adduunye ayaa gacanta ku haysa, adduunyadaasaa soo jiidanaysa. waalidiintii waxay isleeyihiin canugaagii intuu wax kuu barto oo luqooyinkii kuu barto oo iskuul quaratile kaaga baxo, dibadaha lagu geeyo, ila dibadahan geenaynaa bay leeyihiin, oo waxa kaaga soo barto ha kuu soo shaqeeya isleeyihiin. laakiin waalidow maxaaraan baad wax ku raadinaysaan. ilmahan midda kale qayb labaan u qaybinaynaa. qayb dad waaweyn ayaga oo soo galay oo caqligoodii iyo diintoodii iyo dhaqankoodii iyo wax walba u dhammaystiran yahay, kadibna ayagu ikhtiyaarkooda waxaan kolkay arkeen qaatay. kuwaasi dembigoodu waa kabiiru, sii weyn weeye. iyo ilmo ayagoo yaryar ay waalidku keeneen, deetana dhaqankii islaamka intii laga duway dhaqankii gaalnimadka la baray oo dhaqan gaaleed la baray. kuwaas waxaan leenahay waalidiinta ayaa mas-uuliyaddaa leh. dhibaatada meesha ka imaaday waalidiinta ayaa loo tiirinayaa, lianna waalidiintu ayagaa noqday dayuuthiin aan qiiro lahayn oo ilmahoodii keenay iskuul ayagoo adduunye un keli a fiirinaya, iskuul diintoodii akhlaaqdoodiiba lagu dhuminaya ayay keeneen. akhlaaqdoodii iyo diintoodiiba waa lagu dhuminayaa, ayagaa keenay. kuwa waxaan leenahay waalidiintaasi waa dayuuthiin. maantana waxaad ogtihiin waalidiin fara badani ilmahooda dhaqaalahum iyo adduunyada iyo waxay fiiriyaan dhaldhalaagka adduunka maho fiiriyaanba inta badan waxa la yidhaahdo akhlaaqiyaadka canuga ma fiiriyaan. akhlaaqiyaadka maxaa ka imanaya, islaamnimadkiisa maxaa ka imanaya ma fiiriyaan. waa arrin waaqici ah, meel kastoon caalamka ka joognana waad ku arkaysaan, khaasatan wadamada africa. waalidiintii intay madaaristii iyo iskuulladii diiniga lagu baranayay ka saaraan ilmahooda ayaa waxay geenayaan iskuullo gaalo ayay geenayaan. wax kalena ma aha, canugaygu ingiliishka ha ii barto, luqada ha ii barto, ha u fikira se iyagu u fikiraan, lianna dadkeeniba waxay aamineen gaaladu inay xagga fikirka ku fiican tahay. ilaahay baana subxaanahu wa tacaala sheegay oo yidhi inay nimankani caqli lahayn. ayagaana qiran doona markii qiyaamada la gaaro, oo sheegan doona oo dhihi doona wa qaaluu low kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunnaa fii asxaabi saciir bay dhihi doonaan. haddii aan caqli yeelan lahayn, haddaan wax fahmi lahayn adduunka markaan joogno,
saciiro maanan u noqoneen, dad maanan iyo xaabo maanan u noqoneen. kuwii maanta iskuulka bogay boqolkiiba 99.something, boqolkiiba 99.something waxaan dhihi karnaa waa homeless, waa jobless baan dhihi karnaa. kuwii diinta ilaahay bartay ee dugsiyada iyo ka baxay taxfiidyada iyo madaarista iyo jaamacaadka islaamigiina hal maanta qof oo shaqo la-aan ah ma jiro. waan dhihi karnaa qof shaqadiisu siduu rabay aan gaadhin waa la heli karaa, laakiin lama heli karo qof aan shaqaynin maanta lama heli karo. allahuma inuu yahay qof ama dhibaataysan ama xanuun haya mooyaane. marka ilaahay baan idinku dhaariyey, dhaqan musqulaha inay gabdhihiinni noqdaan lesbian baa sabab ugu noqoteen. waxaa sabab ugu noqonaysaa wiilashiinni inay gay noqdaan oy dabada isaga tagaan oy dabada isaga galmoodaan, gabdhihiinnina ay isguursadaan. waxaa ka daran oo arrinta noocaasa gabdha in la arkay ay yidhi waan guursanay oo soomaali ah social mediaha baryahan aad u dhex socotay, iskuulka abaarsana ka baxay. war waxaan aad qarinaysaan waalidiinow, ilaahay hortiisaa laydinkula xisaabtami doonaa. haddaad maanta ilmihiinna gaari weydaanna maalin baad ka qoomamayn doontaan. yowma yafiru almar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi likulli mir'in minhum yowmaidin sha'nun yughniih.